waxaa ku iri war aniga ilmo ma dhaliye waa lii dhalaa waana lii dhalay aan ku dhahe qalad miya af Soomaaligaas muhiimadeedu waxa weeyaan su'aashan ku weydiiyo ilaa saddex iga jawaabtay su'aal ku jawaabtay oo ka helin baa jirta midaas oo ahayd anu ma dhalay waa lay dhalaa waxaas qalad waaye waxa saxda waxa waaye labada qofba way dhalaan adu haddaad jirin ilmahaagu ma jirayo gabadha haddaad jirin ilmaheedu ma jirayo labada qofba way dhalaan marka laakiin social media waxyaalo fara badan ay keento oo ka halaaba jirto mafaad anigana waxyaalo fara badan oo aan keenin oo qarsado wali ii toosanaa jiro social media keeno iga halay ma jiro ku jawaab kaada tooye social media sada u tartiibi hadda iska dhaxso habeenkiisu ka dambeeyay ayaa badiyay kii laga badiyay oo ha that's why aku dhahay waa badi kartaa waa laga badi karaa laakiin ina carartida ceebe ma cararin laakiin adiga maskaxdaada waxa ku siisay su'aal walba oo ku weydiiyay inaad ka jawaabi weydid su'aasha adigu weydiisidna aan ka jawaabo taas maskaxdaada ku siisay waa gartay marka game ma kala ciyaarayo waxa fiican haddii aad su'aal adag weydiisid su'aashaada inaan kaaga jawaabo anna wixii aan ku weydiiyay iga jawaabtid maaha laakiin anu kama jawaabayo sidii Ronaldo ku dul marmara adigan markaan ku weydiiyay sida saxda iga jawaab maaha dirislo orta hadda heshiina waxa la dhahaa wixii la isku og yahay ceeb ma keento afeefoor lahaw ama adkeysama dambe lahaw aniga hadda ku weydiiyay dirisla cabdi hal lagu dara hal meeqa waay shan hadda ay dhahdid waa ii jawaabtay u fiirsaya hal lagu dara hal meeqa waay hadda inta ku weydiiyay shan ay dhahday waa ii jawaabtay inaan ku dhaw maaha qasab waay ay shan ii dheh ma laba dhahdid ma saddex dhahdid su'aasha ani inaan ku weydiiyo ku macnaha inaan ii weydiiso ku ogolaana jawaabtana iga leexanay qasab ma jawaabti inaan adiga sida urubti u jawaabo anigana sida ani urub inaan u jawaabtid ma hadda ku dhaw dirsi jaakad noocee wadata ay dhahday jaakad guduud ah wata waa ka haraani waa jawaabti laakiin haday kugu jiro ana habeen dhaweed waxay tiri meeqa ilma adiga dhashay meeqa ilma ah dhashay that was too personal question ahead waxaan ku dhahay 48 adiga waxay dhahday adu waxay dhahday su'aal dhiiqaan is weydiinayna su'aashaasna anu waxaan ku ogaa inay dhiiqa tahay sababtoo aad su'aal ahaan imka aniga haddii dadku kala duwan yihiin adiga aruusha lagu dhahaa sibaad u fikirtaa fikirna waad leedahay aniguna cabdisaaq baan dhahaa sibaan u fikiraa fikirna waa leeyahay tusaale ahaan anigu haddii aan imka caruur leeyahay hawa xumaato laakiin maanan diideen social media inaan ka dhex sheego haddaan laba leeyahay waxaan leeyahay labaan leeyahay haddii ay wiili gabadh yihiin waxaan leeyahay wiili gabadh baan leeyahay laakiinse su'aasha meesha taal waxa weeyaan in aan soo bandhigo oo wajiyadooda meesha keeno taas un baa macnaha yaro noqon lahay private oo aan oran lahaa aan ciyaalkii ma jeclaan inaan wajiyadooda soo bandhigo laakiin inaan dhaho laba caruur aan dhalay saddex caruur aan dhalay ama 10 baan dhalay waan ku faraxsanaan lahaa marka adiguna waxaan ku arkay inaad tahay qof aan jeclayn inuu sheego aniguna waxaas dhahay su'aashan waa su'aal adag ninkan weydiin social media waxyaalo fara badan ay keento oo ka halaaba jirto mafaad anigana waxyaalo fara badan oo aan keenin oo qarsado wali ii toosanaa jiro social media keeno iga halay ma jiro ku jawaab kaada tooye social media hadda kii hore ma ah social media lagu sheegay waxa inaad qarsatida caafimaad ku jiro mafaad meeqa waxa horta meel ku sheego moogtahay markaas ku diiday inaad wax qarqarisi Soomaalidu inay rabayso waxa aad qarinayso inay ogaato waa gartay macnaha imka tusaale ahaan anu waan ku sheegay marna ku sheegay waxaan ku dhahay waxaad qarin kartaa wajiyadooda macnaha anu ma jeclaystay caruur in social media la soo dhigo waa wax iska fiican macnaha is private way fiican sababtoo ah marna anu walaashay suuqa socotay la dirisna walaashay lagu qosqoslo iyadoo comfortable dareem weeyo tusaale ahaan oo kale imka ama dirisa gabadhu dhalay ama dirisa wiilku dhalay in la yiraahdo oo qofkaas uu comfortable dareem waayo oo aniga dartay macnaha u dareemo in qofka la bullying gareynayo ama ay dhibaato ugu timaado anba ma jecli laakiinse inaan dhaho covid hor caruur ay la dhalatay waan ku faraxsanahay inaan dhaho tusaale ahaan haddaan dhali lahaa afar caruur aan dhalay waan ku faraxsanahay marka muhiimadu taas leeyahay dirislow iyadoo geemka la wada dheelaayo oo la iscifaaleenaayo oo la iskululeenaayo oo dhalinyarada waqtigooda nagu bixinayo ayna daawanayo ay nala joogo ama qaarkood noo kala hiininayo geemka noo kala ciyaarayo
iyagoo laga farxinayo haddana waxaa jira waxyaalo qaar in la isweydiiyo mudan iyo waxyaalo qaar inaan la isweydiinin mudan waxyaalaha inaan la isweydiinin mudan aan kuu sheegaa marka ani hadda taa ku dhaho imise caruura adiga dhashay waa su'aal iska basiida laakiin waa too personal waa su'aashaas haddaan ku dhaho meeqa naagaa soo furtay waa su'aal iska caadi laakiin too personal waay haddaan ku dhaho maxaa income ku soo galo waa su'aal iska caadi laakiin macnaha waxyaalaha personalka qofka ah inaad dib u sii galo muhiim ii ahan waxaa kale ka mid ah inaan ku dhaho qof hebel macnaha wax qaladka sheeg ama lidka sheeg inaan ku dhaho iyadana sax ma aha su'aalo caadi oo basiida la isweydiin ana hadday dhahdid meeqa ilmooda dhashay ilmahayga inaan qarinayo maaha waxaan ku dhaha ani ilmo ma dhalin mana dhali dooni laakiin ilmo waa lii dhale meeqa ilmooda lagu dhalay ay dhahday waa kuu jawaabay inaad jawaabta meesha uga hartay ahayd laakiin qasab maaha sida adi rabtid inaad u jawaabo anigana qasab maaha sida adi rabtid sida ani rabo inaad u jawaabtid mii fahantaa hadda ani midaan ku fahansiinaa haddaba oo aad u muhiima waa ku dhegeysanaysaa haddii aad dhahdid gameku waa game adag oo wax walba la isweydiinayaa waxaan xaq u leeyahay wax walbaan u arko inay adiga kugu adag yihiin inaan ku weydiiyo laakiin waxaad dhihi kartaa markaan su-aasha ku weydiiyo ob dirisa that was too personal xogaa ka yara leexo that was too much way dhihi kartaa xaqa u leedahay markaa saas waaye aniga waxaan rabaa waxaan ku weydiiyay inaad si sax iga jawaabtid oo tusaale ahaan imika su-aal ku jawaabtay oonan ka helin baa jirta midaasoo ahayd anu ma dhalay waa lay dhalaa waxaas qalad waaye waxaas saxda waxa waaye labada qofba way dhalaan adu haddaad jirin ilmahaagu ma jirayo gabadha haddaydan jirin ilmaheedu ma jirayo labada qofba way dhalaan marka laakiin adu waxaad igu jawaabtay jawaab aad farxin oo ah anigu ninaan hoo ma dhale waxaas kama helin ani I don't like that fahanti waa la wada dhalaa ciyaalka labada qofba way dhalaan muhiimad intaas waaye is adkee ani habeenkii dhow dadka qaar iyadoo soo duuba arkay inaan baxsaday u maleeyeen ma baxsanin intii dhinacayga daawanaysaa ogey sababtaa laba geema kaa badiya hal iga badisay 3 geem ma ciyaarinay ahayd okay markaan sharaxaad ani waa dhameeyay wixii sharaxaada darislow laba eray basa wax ka dhaha inta aad dhahdo dhan aniga waxaan ku iri aniga wax ma dhaliyo waa lii dhalaa micnaheeda ma ahan ilmaha ani ma dhalin ma ahan markii dhalmo laga hadlo hebela ilmahan aabba u af Soomaaliga saxda ah ilmahan aabbooda hebel waaye ilmahan hooyadooda hebel waaye waa la dhihi karaa laakiin ilmahan yaa dhalay heblaaya dhashay waaye hebela dhalay ma af Soomaaliga saxda markaa ka wada hadalno waaye ma fahan taa hadda aan ka soo tagno waxaa dhahday su'aal Allah la su'aasha raba ku weydiina su'aal Allah la su'aasha rabtida i weydiinay xaqan u leedahay inay i weydiisid full authority aan u haysataa laakiin aniga jawaabta iga leexsi su'aasha kaaga leexday anigana su'aal okay anigana su'aala ku weydiina su'aasha markaan ku weydiiyay jawaabta adaa kaaga leexday sida rabtid u jawaab hadaarata ka jawaab hadaarata ka jawaabin hadaarata been sheeg hadaarata run sheeg as long as aan su'aasha ku weydiiyay afkaaga wax ka soo bax meesha uga hara dadka iyaga falanqeysanaya dadka iyaga wuxuuda dhiganaya ma fahad أنا ميمدة ده حوالي سؤال شن كويدي ساعة أنا وجوابت. أوكي أنا هذا هل سؤال مكويدي كرادي. دي ما تدين بمحا سؤال مكويدين. مايا سؤال هذا was كيف تمين هذا شنو يودي كرا دارت أنا هل سؤال مكويدي كرا. محاول سؤال بس. أوكي. وحاول كيري وراني المهم دليل واللي دلا وأنا اللي دلا أنكو ده قلت مية في سومالياس. ميدا كوشجع. معناها عدو حد قاعدتي دهار دوي قاعدتي. easy way أجرته hard way قاعدتي. أنا كمان واقف قلدري لكن واحد كودا. ما دام والله في يعني سؤال مهم يسودينه سيدا معناها هيسكت دين إن أدمر والله هذا أنا وكانوا emotional damage يحكي رانسيد. Talk to me like a man. أنا وروح أقول هذا سيدين لينك أوكي. لكن أدمر والله عرفته إن الدهار دوي وحكي ديتيد. معناته سؤالها واحد كوداي إنت عرورة هذا الشيء أنا ما طلع والله يطلع مرة استيل واحد ربطها هذه واحد emotional damage كسر ربطها أنا روح أكاد يوم وسمعين كرتا وجود أنا كوميدي دنتاس لكن سه حاجة وحياة قارئ مهمة تأسي مهمة يجي شو وحياة فن كان فن كده مهمة دنتاس ويعني هذا الكلام مرة واحد أنا سلي جاي وفن كده لكن واحد سلي ويرم مهم أنا سؤال شيء مهم بيه هاي صوت أول كاب بدي جيم وإحنا ونكويدي يعني أساسا حيجي شو بتعرفي
okay waa isla fahanaa hadeertaan waxaas way soo dhammaadeen caawa la ishayamo wixii aan ku weydiiyey hal waxaa kaa codsanaa intuusan geemka dhammaanin ama geemka u bilaaban dirislow horta soomaalida 60% ama 70% hadal la jarjar adeeg kaa badato ma fahanta hadal inta laga soo jaro iyo hadal inta laga soo jaro iyo hadal inta laga soo jaro iyo hadal isku kale Soomaali adeeg kaa barato waxa dhacday warniyo ani waa hadlay habeenkii hadalkay intuu ka baxay hadalka caruusha li maqluuyaay marka ani ma hadalada jarjar ani aad caadi wada sheekeysanaa ma hadalkaaga ani jarjar dirislow walaalo iminka arinta hadalka kama hadli karno sababtoo ah isanaada topic waqtina uu qaadanaa laakiin still xagga u socoto faansanahay been maaha anaa wax samayn jiray laakiin anu hadda waxaan ka hadlayaa maadaama adiguna wax samayn aniguna wax samayn dadka wax samaysanay Soomaa dadkii wax samaysanay iyaga u taalaa doona haw sameeyo waxba igama gelin aniga muhiimaddu waxa weeyaan su'aashan ku weydiiyo ilaa si sax iga jawaabto bis waxa kale muhiim ma dadka waxay doonaan samaystaan su-aasha ugu horey aan ku weydiin doontaa kaa badiyo jawaabteeda adoo isiirinaas iyo qoslooya mafaad waxaan ku qoslooyaa lacalla haddaa ka jawaabaysa xitaa ummaddaa commentiga kusoo qori doonaa mafaade ani nin ragaan oo su-aashani way jawaabtay si saxa uga jawaaba anuuna kaa jeejeysan toos dirito straight dad badanaa markay magacaaga maqlaan iyo markay wejiga arkaa qofka kusoo dhaco mafaade qofka kusoo dhaco waxaa kaa codsanaa geemka ilaa waxaan fani u aragtid oo personal attack aad u arkin inaa entertainment u aragtid waa iska baashaal ilaa u aragtid hal yaroo tusaalaan ku siinaa aruushow bagaa taa noo keentee anu social media wiil baa commentiisoo qoray wuxuu dhahay dirisle 7 sano social media ku jirtid baa ku taageeri jiray marka waxaan tusaale kugu soo qaatay aan 7 sano social media ku jiray weligayna qof aan toos uga xanaaqay ama hadal aan toos uga xanaaqay wiyariin waa hadda ugu boota in qofka uu familkiga caayo hooyadii iyo aabaha iyo jinsiyadeed waxa aan ka xanaaqa laakiin inta kale aan ka xanaaqo qofka ku aqaana ha ka cabsan taas qofka libintiisa lama qariye that's why a legend u tahay ani normally markii la weydiiyo youtuberada ugu jeceshay ama youtuberada dhageysataa Dirisland dhaha hadda xitaa hadda dib u raadis muuqaalada geemamka dheeli jiray iyo mar walba Dirisland dhaha way u dhaha waa laga yaabaa inaa qof isqabsatiin waa laga yaabaa inaa qof isku dhadhagtiin waxaas waa laga yaabaa haddana at the same time qof calool ku qaad leh inaadan ahayn ani intaa ka aqaan aan hadda meeshaan ka sheega ma fahad waana waxa legend waa ninkaas u dhaho laakiin waxa adig ka rabaa maadaama hadda YouTube-ka ka soo tagtay oo TikTok aad joogtid waxa inaad personal u qaadanino wixii lagu weydiiyay caadi aragtid hadda maalin dhewe dacwo ahayd warniyo ani iyadoo lii jarjara arkaaye yaa saan وارون دعوانا ها دعوة أسنا أنت فيديو برايفة صوت وبما أنا صوت دقيقة إنه والله في كل جنان كداي عروشوا هذا الذي هبين كيدو ولا بدين دحمري هذا الله هذه كليات من سوشيال ميديا وكارك أنت هذي والله شري أنت أسمع كداي كأنه الله يفعل أنا ما جرجري ويدك دريس واحد جرتيدا واحد جرب وحالك أنا وأرت هذا يوتيوبرتين هذا يوتيوبر ليتين dhalinyarada maanta TikTok joogta ee muuqaalada duubo ina dhaadin niyow salute idinka naga caansan idinka naga qatas waayo iyagu computer haysanin kaamirooyin waaweyn haysanin microphone haysanin flop wax duweyni ee se wax u dhid galana wax u jarjar ee dadku ugu qosolsiya ma fahad marka caawa dhiiqi isku diyaar Dirislow marka biri hadii meelaha iyadoo lagu wado aragtid ani hay eedine dhalinyarada Soomaad todobkii ma dhina bisagii ما ديار واحد ضد جيبان ديلنا وحن كويدي وحن سماه كل حاب السيدة وسمينه أنا السيدة وكلا ساس وكلا هل ما ذلك الله الله عبد الكاي الله ورت هل ما نتوجم كبلان 4 minutes كده من